maanku maxamed jaamac la yiraahdaa shalayto hadal buu ka sheegay halkan nacam daraataan waxaan galay shir la yiraahdo harti waqooyi ay shir la yiraahdo harti waqooyi ayaanu galay shalay daraato magaalada meel halkaas hudheel halkaas ayaanu soo nimid ilaa 200 qof oo harti ah oo siyaasiyiin iyo waxgarad iyo dumar iyo dhalinyaro iyo cid walba leh anagu kaga hadlaynaa arrimaha reerka iyo dadka iyo deegaanadan ku soo jeedno wax iska weydiinay ay maxamed jaamac wuxuu kamid ahaa xubnihii meeshii xildhibaanku oo de hartiga matalayay runtii uu nala joogay cabaan markuu nala fadhiyay oo sheekadu ay bilaabmi lahayd wada hadalkii waxaasi ayuu markii malaha telefoon baa ku soo dhacay ayuu kacay oo booday war waa maxay sidaan oo kamaradahan maxay ahaayeen iyo kamaraduna waa kuwa sawirka dadka laga qaadiyo caadiga ah meeshii marayay kamaradahan iga daayaan doon ma sawirkayga lagu arko meeshan wala arkayaa wax dhulka ha maamul hadhow baad leeyahay ku geeyay meesha maxaa u tagtay rag baa soo moogtay rag baa ka dambeeyay war iska soo kameeshay ayaa lagu sawir hartiga malaha hartimatidi information buu doonay baan u qaatay sida darteed iska kacay wuxuu waan anagu toogay ma mid kamarada meesha ay marayaan hawshaas ma fadhiyo meesha waan kacayaa de ka kacbaa lagu yaabo bawr badoonaysi war aad naga qaado meelgiis ma hayne odaga horta halka ceeb baa ka raacday wuxuu ka hadlayay intaas u baahido fariin la soo faray ayuu markii dambe ka jawaabay نعم نكي ونا حلبانك reeraha matalayay dadka matalayay deegaan dhowr buu hodal matalayay ayaa gabiisi wuxuu noqday dad kale u shaqeeya xildhibaan yahay ama wax magaranaysa ama lagu adeeganayo information adigu shib jiraad buu qabtay odayaalan ka xishoonay rutiyaan qadariyo riwaaweyna buu horta aflagaadooyin odaygaasi gaarsiyo odayaashan waxa la xaal baan inta siinay hadaan ka xildhibaan bulqasan waxa uu ku hadlay maxamed jaamac xildhibaanku wax kifkiina maaha iska dulqaata iska raali ahaada odaga fariin la soo faray baa haydo lagu dhici waa rag ku dhici waayeen waxay soo gaarsiiyeen ama waxay sheegaan ayuu fariintoodii sidii marka iska raali ahaada waa oday buu soo faray arrimaha ragii ku dhici waayeen waa la ogyahay oo oran waayay sida ku oran kari waayeen masaxyada ama meelaha qaar kood si adiga isaga u soo adeegsadaan oo dilwana iska xaafadii ah in la fageliyaga la isku jabiyo sheeka ah ay meesha ka socotay baan u fahmnay ma doonayo أنا كسي فقادو سكول فشلة نعم حلمانة الدجاج كان كسوة تشيل روتي معها إن قال غفكو أنا حلمانة كانوا الدجاج كلام سكول حفيظ إنه كوضع هذا لكن كي الدجاج كان كسوة تشيل إنه كمان مسير كوضع هالديني إن ليس وادي سدول رسائل سال من ليس وادي سياسين تيلا ومس سبحان الله حلمان كواربو هذا كوار وماشي كده بس حاجة شفت أنا ما أنا برني عرقامك قليلة طبعاً كيسان اللي ودن بيان لعوار حقوقي غير كي تدكوي مغيين وليني كان سوكا هالله غير حقوقيس أما بوه اللي صول سنة كشك هنا لما أعرف دي أنا نسي هذا اللي أنا أفتكر الحكم ديك بالي هذيك أنا نسي عم سنة سيدنا دتك اللي قدين معي مركز صاحب كمسي فوقانا إيه معك الجواب يقول بيرو يحل بانكو هذا نوع نفتيمين يقول كمان ثانية رفتيمين وحنا دي شركي برعو يبورمه heshiisyadii la galay hadaan deegaanada aan ku soo jeedno wixii aan galay wax wada qaybsi ahaa iyo soo dheelitirnaan ahaa iyo saami qaybsi ahaa iyo hantida waddanka soo gasho oo la wada lahaa iyo miisaaniyada oo la wada leeyahay iyo waxaas oo dhan waa nala ka bursaday sidii loogu tala galay looma isticmaalo xuquuqdii waddanka waxay oo dhinac bay madamareen waa laga saaray madaxdii waddanka oo dhan iyo maxaan ku raadayay mas'uuliyadii ugu sareeyay oo dhan xuquuqdii dhinac bay mareen heer gaar ah ayaa qaatay waxaasaan ku hadalnay adeer way jabeen heshiisyadii aanu galeeyahay wax wada qaybsi iyo isla kaashi wax lagu helo ama wax lagu wada qaybsado taasoo bala cadeeyay lahaa hadii kuwaasi jabeen oo ay reer gaar iska misteen wixii aanu galay waa bureen hamkana waa ku celinaya waxba kaba jiraan hadii aan la soo celin xuquuqdii dadkaasi lahaa iyo wixii lagu heshiiyay ee halka la soo dhigay bit by bit adeer ilaahay madaxweyne ilaahay wasiiradii ugu sareeyay ilaahay jananadii iyo hogaamadii meel walba waa xaafado gaar ah waxaan ku hadalnay adeer hadii maxamed jaamac aad kuwaas ilaahay ka dhastaabay aniga iga ma dhastaabay ka hadlaya ilaahay inta ilaahay soo celinay nasrka oranay waa adeer xuquuqdoodii shirarkan ka hadlay oo shirkii burco iyo boorame heshiisyada lagu galay ee reer Soomaaliland oo dhan ku galeen ee ahaa xuquuqdii dadka si siman in loo helo tii khaatumo kuma jirtaa kaas laakiin khaatumateedu waa special code waa mid ka gaar ah waana mid jira oo xaq ah oo dawladda hore gashay waana laga rabaa xukuumadda hadda joogtaa inay fuliso xukuumadda waxaan u baqayaa inay khaatumo arrinkeeda meel saartaa
reeradan oo khaatimo ah halka soo taagan oo aad oo hubkii dhigay oo dawladii soo raacay oo la heshiiyay oo wax loo sheegay ma hadda in laga baxo marba gidaar lagu dhufto marba meelaha laga sheego la yiraahdo odayaashii baa iska sida darteed waxaan leeyahay halkaasi fadlan xukuumadda u soo dabac oo dadka xuquuqdooda soo